السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad waa barnaamijkii galabnimo maanta waa talaado taariikhduna waa 14 bisha luulyo sanadka 2026 haddaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn Trump oo lacag baada weydiisanaya inay bixiyaan dowladaha khaliijka si looga ilaaliyo weerarada Iiraan haddaba sheekada la yaab kale waa idinaya taliska dhexe ciidamada Mareykanka oo iyaguna goordhow sheegay inay soo gabagabeeyeen weerarkii saddexaad oo bilowday xalay oo ay ku qaadayeen Iiraan haddaba Iiraan oo iyaduna soo saartay meelihii weeraradaasi ay kaga jawaabtay iyo halkii ay garaacday diyaarad Mareykanku leeyahay oo weeraradii ugu dambeeyay lagu soo riday haddaba wararkaas ayaynu ku faahfaahinaynaa barnaamijkeena labaad maanta oo gabi ahaantii aynu ku soo qaadanayno wararka soo kordhay ee xaaladda bariga dhexe inta aan ku jirno wixii warar soo kordhana waan idin la socodsiin dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan haddaba warbaahinta carabta kuwa caalamka waxay aad uga hadlayaan hadal uu saakay sheegay ninka la yiraahdo Trump waliba wadamada carabta aad ayaa looga hadlayaa waxaa la leeyahay Trump wuxuu weydiistay dowladaha carabta iyo Israa'iil inay lacag bixiyaan lacagtaas oo ah lacagta aan idinku ilaalinayo waa inaad bixisaan Iiraan idinka ilaalinaya ani haddaan meeshaan ka tago Iiraan waa imaanay waxaa dhan way qabsanay macna Israa'iil nagtay ka saaraysaa u leeyahay marka lacag idinku waardiyeeyaa alximaaya waxay u baahan tahay lacag ximaayadu marka waa ilaalintaas lacag u baahan marka waa inaad lacagta iska diyaarisaan marka carabti waxay leeyihiin ninka mana ilaaliyaa horta dadkii social media dowladihii ku jafaayeen carabti waxay leeyihiin ninka lacag ba aan siinay hadii ba la siinaaye horta mana ilaaliyaa muxuu naga ilaaliyaa saldhigyadiisii ku yaalay gobolka oo wadamada carabta ku yaala maalin walba la holcinaya kuwii ilaasho laayay marka maxaa lacag lagu siinaya waa baad caadi marka ninka waa soo shaqo tagay marka sheekada la yaab kale haddaba aan idin tuso telefishinka ruushka ee la yiraahdo RT ayaa wuxuu qorayaa warbixin uu leeyahay Trump wuxuu ka dalbaday dowladaha khaliijka iyo Israa'iil inay bixiyaan lacag lagu ilaaliyo wuxuu lacagta uu ku ilaalinayo Mareykanka inay bixiyaan taasoo laga ilaalinayo Iiraan iyo sidoo kale ilaalada Mareykanka uu ku hayo marinbiyoodka Hormuz haddaba sheekada la yaab kale way sii socotay waxaa la leeyahay warbixinta iyadoo laga jawaabayo weeraradii ugu dambeeyay ee Mareykanka Iiraan ayaa bilowday inay beegsato saldhigyada military ee Mareykanku ku leeyahay khaliijka haddaba isagoo arintaasi ka hadlayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka cad isagoo sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono sugidda amniga dalalkan sida uu yiri balse ay tahay inay bixiyaan kharashka adeegaas lagu qabanayo waxaan rabaa in nala siiyo lacag sababtoo ah waxaan ilaalinaynaa qaybo aad u hodan ah oo dunida ka mid ah waxaan arintan ku bixinaynaa lacag Trump wuxuu yiri waxaan lacag ka heli doonaa dalalka aan ilaalinayno sida Sacuudiga Imaaraadka Carabta Qatar Bahrain Kuwait Israa'iil iyo kuwa kale annaga uma baahnin dalalkan iyaga noo baahan waxaan leenahay shidaal aad u badan waxaan soo kala haysanaa shidaalka wadanka Venezuela oo dhawaan aynu qabsanay dhanka kale Trump wuxuu yiri wuxuu ku dhawaaqay Mareykanku inuu markaa go'doominta saarayo Iiraan oo go'doominta ku sii wadayo way marka ninkan Trump leeyahay dowladii carabtu wuxuu leeyahay lacag keena yab annaga ayaa aragnay taagi maxaa ka lacagta ku dhiibna waa idin ilaaliya maxaa laga ilaalinaysaa Iiraan oo Iiraan annaga naga ilaalinay saldhigyadaada ka ilaasho saldhigyadaada yaaba nagta laga saarayay marka sheekadaas oo kale ninkii odaga maruu yiraahdo meesha isbaarada ana lacag ku qaadanay lacag keena oday marka meel u socdo meel kale la fahmi waayo carabti waa wareereen marka way aamusayn cid walba afka haysata Netanyahu kooxdiisa xataa waa aamusayn marka nin walba wuxuu leeyahay Iiraan ay ka ilaaliyaan ani haddaan meesha ka tago le ka tahay Iiraan waa idin qabsanay kulligii
marka sheekadu halkaas ee mare dhanka kale taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa waxay sheegeen weerarkii xalay saq dhexe ay bilaabeen inay soo gabagabeeyeen maanta barqadii oo mar walba ay meel weerarayeen wuxuu ahaa wareegii saddexaad saddex habeen oo isku xigta weeraro xiriir ay Iiraan ku qaadayeen waxay sheegeen inay meelo kala duwan ka burburiyeen Iiraan haddana waxaa laga baqayaa isla caawa haddana in weeraradii afraad ay mar kale bilowdaan haddaba arintu soo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray taliska dhexe ciidamada Mareykanka wuxuu sheegay inay soo dhameystireen mawjadii garaacista cusbayd ee lagu qaaday Iiraan haddaba taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen weeraradii ugu dambeeyay ay ku qaadayeen Iiraan iyadoo la sheegay in markaasi ay socotay duqeymahaasu xoogooda uu socday ilaa 5 saacadood taliska dhexe ciidamada Mareykanka waxay sheegeen in markaa howlgalkaasi lagu baabi'iyay awoodda sida ay yiraahdeen Iiraan oo markaa dhibaato ku ahayd isu socodka marinbiyoodka Hormuz sida ay sheegeen waaye marka waxay yiraahdeen natiijo wanaagsan ka gaarnay dagaalka 5 saacadood oo xiriir aan duqeynaynay waxaana diiradda saaraynay meelaha Iiraan ay ka xiri kartay oo ay gantaalaha iyo droneska ka soo tuuri kartay marinbiyoodka Hormuz marka sheekadaas ayaan maanta qabanay yiraahdeen marka ciidanka howlgalkii marka waa soo gabagabeeyay hadda marka waa la nasanaa caawa noo balano waa habeenkii la isku soo noqonaa meeshaan habeenkii ilaa aroortii ilaa barqadii jugta la iska gelina kadibna waa la kala nasanaa markay nimankan warka soo saareen Iiraan iyaduna waray soo saareen waayahay waxa iyaguna isla markiiba war soo saaray ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay yiraahdeen annaguna waxaynu bartilmaameedsanay oo gantaalo ku garaacnay goobo muhiim u ah Mareykanka iyo saldhigga ciidamada cirka Urdun oo halka ay ciidamada Mareykanka ku sugnaayeen waxay kaloo sheegeen inay sawaariikh ku garaaceen goobo muhiim ah oo Mareykanka uu leeyahay oo ciidamada Mareykanka ay isticmaalayeen waxayna sheegeen in meelaha ugu muhiimsan ay garaaceen ay ahayd saldhigga ciidamada cirka ee dalka Urdun waaye marka intaas markay sheegeen haddana waxay soo raaciyeen war kale oo ay leeyihiin maanta weeraradii ay soo qaadeen hal diyaarad ayaynu kala harnay macnaha soo ridnay ayay leeyihiin haddaba wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa waxay leedahay warbixin ay qortay warbaahinta Iiraan ayaa sheegay goor dhaweyd in markaa la soo riday mid ka mid ah diyaaradaha droneska Mareykanka uu leeyahay iyadoo dul maraysay marinbiyoodka Hormuz iyadoo dul maraysay ayaa la soo riday haddaba diyaaradan ayaa nooceeda waxaa lagu sheegay inay ahayd MQ-1 oo ka mid ah noocyada Mareykanka uu ku dagaalamayay habeenadii la soo dhaafay oo duqeymaha ay kaga qayb qaadanaysay dagaalka lagu hayay Iiraan waaye diyaaradda odaga waa laga qarramsaday iyadana waa la soo riday dhanka kale warbixin guud oo ku saabsan marinbiyoodka Hormuz cidaan iyaga ahayn inaysan halkaa soo mari karin oo aysan amrin ayay ciidamada Iiraan iyaguna soo saareen goor dhaweyd haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Iiraan waxay sheegtay inaanay marnaba dib uga noqon doonin go'aankeeda marinbiyoodka Hormuz afayeenka ciidanka Iiraan oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay goor dhaweyd in ciidanka Iiraan aysan ka noqon doonin marinbiyoodka Hormuz talaabooyinka ay ka qaadayaan haddaba waxa uu sheegay inaan dib loo furi doonin marinbiyoodka Hormuz oo dagaal iyo dhaqdhaqaaq ciidan iyo cadawtinimo Mareykanka uu wado inaysan dhici karin in marnaba lagu furo marinbiyoodka Hormuz haddaba waxay sheegeen wadada kaliya ee lagu furi karo inay tahay marinbiyoodka Hormuz in la ixtiraamo waxa ay ku tilmaameen xuquuqda shacabka Iiraan oo ah in iyagu halka maamushaan oo ay ilaaliyaan haddaba waxaa naga go'an uu yiri dhanka kale u sheegayna Mareykanka inaynu ka aargudan doono dilkii shuhadadeena gaar ahaan aayatullaahigi naga dhintay Ali Khamenei marnaba ma iloobi doono waa aargudanayna marka Trump ha isku qariyo Netanyahu ha aamuso annagu waa idin sii sheegayna aayatullaahiga dilkiisa wallahi ka tahay inaan la isu dayn doonay ilaadeen marka afayeenka ayaa isaguna
warkaasi soo saaray. haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa wixii soo kordhay xaaladda bariga dhexe. barnaamijkaygii labaadna intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. fadlan wixii fakar iyo aragti adaysaa noo soo qora, laagareeya oo sheergareeya barnaamijka, ku xirnaada mar walba barnaamijyadeena xaqiiqada ku salaysan, innagoo mar walba idinla wadaagna macluumaadka iyo wararka aanu soo gudbinayno halka ay ka yimaadeen. inta aan mar kale kulmayno asxaabay, nabadgelyo.